maansadan magaceedu waxa la yiraahdaa Xardoon waxay soo baxday 23 August 2006 12 August waxa dunida looga aqoonsay maalinta dhalinyarada dunida markii koowaad waxa Soomaaliland laga xusay 2006 marka dhalinyaradu waxay aad uga hadleen sida loogu baahan yahay inay talada dalka qayb galaan iyo xeerka sheegaya in xildhibaan lagu noqon karo 50 jir ama madaxweynaha 40 jir laakiin aan xadidayn inta siyaasadda laga baxayo waxay ku nuuxsadeen ragii 60kii talinay ay la maanta talada hayaan nin dhalinyarada sharaxay goli deegaanka 2002 waxa lagu yiri aabaha iyo awgeedaba bilaa camale ad maxaa doonaysaa ordo meesha ka fadhiiso waa dhalinyaraduna waxa way ku jiraan xilligii maskaxdooda iyo muruqooduba ay xooganaa ee laga fiirsan lahaa halganada maalintaas curtay ee maansadana ka hadlayso qaar kamid ah suurtagalay oo wati doorashadii golaha deegaanka 2012 xeerka hoos loo dhigay ee 25 jir la yiri taasi waxay sababtay in dhalinyaro badani ay jaanis helaan oo iska sharaxaan golayaashii deegaanka isla markaana ay awoodooda muujiyeen magaalooyin dhan ay maayarro ka noqdaan xitaa niman macallimiin waxaba maanta maayarro ka hadalka maansadu mawduucaasi guud ahaan ka hadlaysa dhalinyarada waxay ugu baaqaysaa inay xayndaabka reeraha ka baxaan oo iyaga iskuulada ay iskaashadaan xaqoodana ay raadsadaan maansada Xardoon waxay tidhi maansada Xardoon waxa ay tidhi ninaan xaraf sheegan karin hooyaba ma xanaaniso muraad xabadkeenu rabo haddaan xubin lagu cadayn xuub iyo dahba korsane tan iyo waqtigii xornimo ragii 60kii xilkii xayuubsaday maamulka ilaa hadda xaadiro u xaydan kuraasidoo xafiiskana doonayay barroosin xabaaran iyo maxidida uga dul baxay xarumahan dawladda xukuumaddu waa dukaan xisaabtiisa ay hayaan mise waa xilo mar hore xaakinku u guuriyo ana xirgiyoon ogeyn xasuustu qof yartiyo maxay odayaal xafashay wasiir xadka dhaafay oo 80 dhan xay ahaa agaasimo xiiqsan oo xilliga 70 jiray dad yahow xildhibaan daahi dhibaato xallin karaan xiniyo maayniga sharcigu xagal buu maree haddii xagga hoose guga bulshooy laga soo xadiday shuruud adag lagu xidhxidhay maxaa xagga sare ka dhigay midaan xanibaad lahayn xayndaabkee duqayda celin maxay baa taasi qaran xurmada yeynaan ka tagin waxa dadka lagu xushaa xusuusta garaadka iyo xeeldheeri aqoonta iyo cilmiga xirfad kaabayse barbaartu xashiish nacfila runtii xaabo ma halid xaqiiqdii aan qaadi karin mas'uul xambaaraye xidiga weeyaan jiro xushmayna mutaystayo xiskoodu dhamaysiyoon xawaaraha gaabinine kuwii xaafadaha arliga xinjirta u daadiyo maxaa dhalin loo xistiyay kuwii xasiloonidiyo amniga xafidayay gebi kuwii xurgufaha dagaal nicbaa xansaska iyo qodax xuduntii horumarkaba hadma laga xiisa dhacay xariir dumarka hantee miyaan xilka loo sanayn xatooyo ninkii galaac ogaal xabsi loo unkay maxaa daayar loo xayiray talow xeer beegtideen xumaanahan eega jira xabeebtan hortood dhiga qof xeel daranaad dhacdeen xaqiisana leexadsateen kolay xadxatay mur iyo xajiin lama sii marshee inaad xigmadgaab tihiin xogtaan maqlay baan fajacay xafiisyada dawladeed annaba waan xayuubsannay haddaad tidhi xoog ku hela inaan nabad xeerinuu garaad xangulluhu faro inaan xabad qaadannaa gaddii xalay way tagtay xadhaadhkan la saydhayiyo xariifinta looma bogin gammaan xakamaa dabroo insaan cimrigaa xidhee xantoobo gunnooyiniyo isay laxagtaba ninkii xaf quudin la siin lahaa haddii lagu sii xojuun xilkan ka nastay lahaa miyuu xalku noqon sidaas hadduu arli xaysku da'o xareedana jiid loo wado in loo wada xaadiraa waa loo wada xaadiraa inaad xoor kali dhantaan xanuun bay nagu taho annagu maanan xamilin xaqa iyagii noogu shuba waxaan hadalkii ku xidhay bahdayday xarafkan dhugo xaaxeeyaa seexatee kaco xusul duubta oo haddaad xagal wada daydaan
xerooyinka reerihiiyo qabyaaladda xooraysaan wadnaha isu xalantihiin xiqdiga aad laalaysaan xaqiinna inaad heshaan xaliimku hadduu fasaco xariiqan runtii barrow xaashida looxaa dhigtee dhammaan xisbi wada noqduun